غير ودين سلام يا سلام كذب وحنا رمنا اللغة جرك إن نكون الاستاجنا وحشالة كده عقلها شعبك اللبان كهذا الذي سأينو فلانقيننا كذبنا وحين بوقان ضرنا حلبان كلا markaynu ka bilowno gacantiisa qaabka u labalamaynaysa jaraintana ku dhahan taamiiskan tartiib ugu dhufanayo waxaynu ka dheehanaynaa ninkan gacantiisa inay gadaal ka baqayso midda xigta ninkan ficil ma samayn kara ilaa uu fiiriyo xildhibaan xasan cabdinuur waxayna kaga dhigan tahay ficiladiisa inuu u muujiyo xildhibaankiisa kalsooni badan uga helo midda xigta ninkan waa nin ku mashquulsan kaamirada dhankay ka jirto meel walba ee kaamirada uu ka fiirinayo wuxuu fiirinayaa meel ay kaamira ka taagan tahay tusaale ahaan qaabkan dhanka kale ninkan qaabkiisa iyo ficiladiisa waxay inta badan ku xirayeen xildhibaan xasan cabdinuur qaabku farambiga u yeedhinayo qaabku caaga u tuurayo tusaale ahaan qaabku caaga u tuurayo ayaanu rabnaa inaynu dul istaagno waa kana caaga u tuuray caagan marka uu tuurayo ayaan rabnaa inaan dib ugu laabano si tartiib ila fiiri xildhibaan xasan cabdinuur markuu mikrofoonka dafa ayuu ninkan caaga ku tuuraya gudoomiyaha baarlamaanka markaynu dib ugu soo laabano luqadda jirka fasiraadeeda su'aal muhiim ah waxaan ma waxay ahaayeen qorshe laga soo shaqeeyay jawaabtu waa haa waxaanu ka dheehanaynaa qaabka u fiirinaya xildhibaanka kale la yiraahdo xasan cabdinuur isaga oo ka dhaadhicinaya in howshii loo soo igmaday sida ay tahay inuu u fuliyo su'aal kaloo muhiim ah haddii ninkan xildhibaanka sheeganaya bambo ama buskood u haysan lahaa maxaa dhici lahaa shaki ma laha gudoomiyaha baarlamaanku ku dhufan lahaa u dhaawici lahaa ama u dili lahaa sidaan wada ognaa xildhibaanada cusub ee laga soo doortay koonfur galbeed waxaa tuhno badan ama su'aalo badan looga qabay kuwaas oo lagu saleynaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab mis leedahay xildhibaanadii laga shakisanaa ayuu ka mid yahay ninkan firimbiyaa yeershay caagaa ku tuuray ciidanka ay ugu soo carareen ciidanku soo amray marka dilka waxa keen intaas waa waxaan soo gaarnay gabagabada markaynu dib ugu laabano xildhibaan xasan cabdinuur waa xildhibaankii diidanaa muqdisho inay maqam yeelato waa xildhibaankii u loolamay kursiga maanta uu ku fadhiyo Sheekh Aadan Madoobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka su'aal muhiim ah haddii ninkan gudoomiyaha baarlamaan uu noqon lahaa maxaa wadanka dhici lahaa tan kale su'aal la weydiiyay ayaa waxa ahayd shalay markuu xirnaa Mukhtaar maxad ugu doodi weysay isla afkiisa isaga ayaa isku burinayo leh waxa kaliya hood ka doodaysan ma Mukhtaar Roob oo Mansuurba golaha dhama sida loo dhisayba waa diidana waa yahay soo lagama yaabo in maadaama dhibaato badan Mukhtaar Roob oo Mansuur oo kala kulmay koonfur galbeed la soo qabtay asagoo musharaxa xabsi la geliyay 5 sano oo xabsi ku jiray haddana uu wasiir yahay inaad ka shaqeysaan sidii dib heshiisiin aad halka uga sameyn lahayd haddii in laga wada shaqeeyo Soomaaliya garab kaliya ka shaqeyn kara waxa la rabo in laga shaqeeyo dib heshiisiinteeda iyo soo koonfur galbeed ma Mukhtaar kan u jeedaa yaa ka shaqeynaya iyo koonfur galbeed yaa ka shaqeynaya marka idinku xildhibaana in laga talageliyo Soomaaliya oo la weydiiyo oo la talagelina xildhibaana tahay soo Mukhtaarna waad u tagi kartaa xaggana waad tagi kartaa Mukhtaarka intuusan soo bixin ama marka la soo bixinayo wasiir laga dhigayo in loo sheego ninkan baan rabnaa inaan soo saarno oo wasiir ka dhigno state isana loo kala daba qaado in aad xabsi ku ilowdeen oo u hadli weyseen intuu xabsiga ku jiray ma soo xujira nin aad xabsiga ku jiraba muddo ku jiray koonfur galbeed ay ahayd inay qayliso oo ay tiraa ninka xabsiga ka soo saar taabaad ilowdeen Soomaa ya ilaaway ya ka hadlay adigu wali ma ka hadasheen oo dad badan baa ka hadli jiray oo adigu laakiin kama annagu kama hadlay